waxaa jira guryo gubta oo dab ka kaca oo dad ku dhintaaniin ama dad baa dhaawac gaara ama xoolaa lagu waayaa talow yaa laga hortagi karaa dabka dabcan waa laga hortagi karaa okay dab hadduu guriga ka kaco see baan ula tacaamuli lahayn hadduu qof gubto hadduu qof dhaawac gaaro see baan ula tacaamuli lahayn aniga haddii aan gubto sidee baan yani isu daaweyn lahaa intaan takhtarka aadayo ووحن أوغان دونا إن شاء الله فيديو كان صوص عضا صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم سبحانك ربي أستغفرك وأتوب إليك ولكن عبد العزيز يلا sheekada koowaad waxay ka dhacday jikada gabar baa jirtay cunto karkarinaysay ayadoo cunto karkarinaysa mobile baa soo dhacay way tagtay mobilekii bay ku hadlashay way ilowday saliidii wixii dabka saarnaa saliidii baa gubatay way soo oroday markay soo oroday aragtay saliidii ololeysa waxay samaysay biyo intay keentay bay ku shubtay markaas dabkii ku kacay meesha jikada oo dhan kabacdina guriga oo dhan buu qabsaday gabadha haddii la fiiriyo waxay gashay laba khalad khaladka koowaad waxay gashay waa ilowshinka khaladka labaadna ay gashay waxa weeye biyaha ay ku shubtay saliidda gubatay ama wixii gubtay saan ogsoonahay ilowshinka mushkiladiisa waa la xallin karaa waxa weeye alarm baa lagu xiranaya mobileka way fududahay 10 daqiiqo 15 daqiiqo intay biyaha intay maaragtay cuntada طيب haddii aanu tagno arrinta kale qofka yani bani aadam caadi wey ma yaqaan dabka see loola tacaamulo dabka hadduu jikada ka kaco awalan dabka hadduu jikada ka kaco qofka inuu ka taxaduro inuu biyo u isticmaalo waayo biyaha haddaad isticmaashid يعني waxay sameynaysaa 10 adcaaf bay kor u kicinaysaa dabka 10 jabaar bay kor u kicinaysaa dabka markaas meel kasta qabsanaya haddaad hor taaganteed wajigaaga xataa waa gubanaya waa in iska ilaalina teeda labaad hadday dugsi gubto ama wax gubtaan waa in la daboolaa dabool baad saaraysaa waayo dabool haddaad saartid oxygenkii baa ka jaraysaa daboolkana qaabka loo saarona waxaad u saaraysaa saan يعني دكسيجي مثلا واكن أما شيء قد بك صارنا ساسة بصارس أقول ريح ترتيب إلين والضبالمه إساء وما صارس وإساء ضد وحكر حد عضي لبك بلود حليمة إسارة يا عيالي سوي عيالي أنا عيالي كذا جلين أضيق السي وحبار عيال مهم وحي تشيرين باشي غاز كتشيرين ضبك باي دكسيجي بس لا يكون رقمي شيكا يعني محزنة وي والله maamada halkan laba khalad bay gashay khalad kawaad oo ah caruurtiiba jikada ku sii deysay khaladka dambe ee gashayna waa maxay dabka markay wax saartay si fiican umay saarin aw dib umay riixin leena waxay saartay afka hore okay caruurta yaryarka ممنوع إني قالان كذا هدي قالان كذا ولا جناحية طيب عروض يربا سيدا قبلها كلا واي كوبتين بياكل ضاعتين أو واي كوبتين أنت أنا تختار كالجين وإن لا إسعافة سيلو إسعافية وحل السماني مركز الإسعافية عروض يريركا لازم إناد بيوك فرتد ماشي قبتي مدة 15 دقيقة واحد كوسي ديانسا بيو صعونية مدة 15 دقيقة كبعدي واحد كينسا مرة نظيفة عن قطنهن واي قطن كواتك دقا مرة قطنة واحد كينسا مرة نظيفة كينسا جريح بعض صارسة والضبولسة كبعدي واحد غادسة تختار كينسا مركي قبتان تختار كهذا ولا عررتد يعني وحياة بدن بعد كهر تيجي لهاد هديها تقول كو إسعاف يعني إسعاف أولي يقول هديها كو سنة حتى أنك هديها نقول إنه أما قف ميلك قبته لازم 15 دقيقة وين بيها كفرتها بيها أو كفر اسمها بيا كلول ولا بيا قبو وبيا عادية أوكي شيء هذا ضبك صار ست وأنا قلنا هذا أفر إندو ده تاهي بعشرة بيجاز كده ده أفر إندو شغلة عندها حاجة الضنبي حاول مرة والبا لبضة الضنبين هذا استكماشد عشان قفك يعني وحكون رقمي شاه أما بيا أما وحون يعني كل رقمي إلى أن نحفظه شيء كذا صديحات sheekada saddexaad waxay ka dhexal caday jikada waxa jiray oday iyo xaaskiisa oo murmaya oo isku booqaya mushkilad weyn baa ka dhaxaysay caruurtii yareena way taagan yihiin waana daawanayaan
odaygii intuu xanaaqay shay wixii dabka saarnaa intuu soo qabsaday buu ku tuuray xaaskiisii ayaa u gambisay. gabadhii taagneed gadaal bay ku dhacday, gabadhii baa gubatay. halkaa yani islaanta gurigale ama xaaska gurigale xaaska waxay samaysay khalad weyn bay samaysay. khaladka waaday samaysay, oday waalan bay guursatay. ma jirto qof caqli leh oo waxa dabka saaran oo ku tuuraya xaaskiisa iyo caruurtiisa. waa waalanay ka iska ilaali mid waalanad guursatay. khaladka dambe ay sameeyeen caruurta yaryarka hortooda ayaa mashaakil iyo buuq laisku furay. waana khalad weyn waaye. markaad murmisaan ama mashaakil naga dhexaysan caruurta ka ilaaliya, leano caruurta nafsiyan tacbaan bay noqonayaan ilmaha baa laga yaabaa. marka caruurta yaryarkaa ka ilaaliya, nafsiyan iyo jasadiyan iyo wax kastaba ka ilaaliya inaad hortooda ku muruntaan. khaladka saddexaad eed sameysay, jikada maaha meel lagu murmo. waxayd inuu yara kaadiso oday ka saarto meesha. leano jikada waad ogtahay mindi baa halkaa taalla waxaa taalla seef baa kale halkaa taalla, wuxuunbaa halkaa yaala. marka waa jikada maaha meel lagu murmo. qofka khaasatan hadduu yahay odayga mid waalan sida odaygan oo kale. gabdhihii almuhim dakhtarkaa loola cararay. markaa loo sameeyey iscaafaad awaliya, biyo lagu furay oo maaragtay maro mucaqima meesha loo saaray ay ka gubteen, oo haddana gabadha ay ka gubatay sida dee gabadhii hore oo kale. sheekada afaraad waxay ka dhacday guri yarbaa beri shaqo lahaa, shaqo cusub uu socday beri. wuxuu sameeyey shaatigiisu kawdeystay, feeradu ku feereeyay shaarkiisii, surwaalkiisii dhag meel busaa u surtay. kabacdii uu tegay iska seexday. feeradiibu wuxuu ku ilaaway qeybasadii iyo korontadii oo daaran buu iska seexday. feeradii baa aada u kullaatay, qeybasadii baa aada u kullaatay. adigu qeybasadii dab baa ka kacay, waxay gubtay darintii gurigii, furaashkii, wixii dhan bay isku qabsatay. gurigii saasuu ku gubtay. marka ninka khalad weyn buu sameeyey oo ah koronto ayadoo daaran ayuu seexday. marka waxaa niga digayaa oo iska ilaalinaysaan in koronto ayadoo daaran inaad guriga seexataa. iska badaa adoo yani guriga haddaad ka bixisid iyo haddaad maaragtay aad guriga joogtid iyo haddaad seexanaysidba korontada aad u baahneen dimi. iyo qeybasooyinka qadran imkaan iska yareeya. maysir 10 qeybaso in guriga saa ugu yaaciso maysir. qeybasada lena waa taqaaniso anagu qeybasooyinka iyo original ma ahan, waa iska mashi xaalag. sheekada shanaad waxay ka dhacday arooska waxaa la keenay baaruudi. waa taqaana waxaa la keeno, nin baa baaruud dhuftay. kii agtiisa taagnaa waxay qabsatay suudkiisii bay dab ka kacay. ninkii waa cararay, dabkiibaa sii batay, waa cararay. aakhirkiibaa ninkii dee lama qabsan karo, nin dab ka kacay oo cararaya yaa qabsan kara. aakhirkiibuu dhulka ku dhacay, waa la imaaday, waa la daboolay, dabkii baa laga dimiyey, dakhtarkaa loola cararay. ninka khalad weyn buu sameeyey oo ah aslan baseen biri qofka markuu dabka ku kaco 3 xarakado oo muhiim ah inuu sameeyaa. waa sawirkan hadda ujeedaan. xarakada koowaad waa maxay? qofka waa inuu istaagaa, leano haddaad dhaqaaqdid oxygen baa ku maraya meesha. oxygenkana wuxuu sameeyaa dabku aada u kiciyaa. teeda labaad waa maxay? qofka sameynayo waa inuu dhulka fadhiistaa, dhulka waa inuu seexdaa. tan saddexaadna waa maxay? waa inuu saa dhulka isku rogrogaa suu dabka u damo. hadduusan dabka damin dee maraa la keenaya la diminaya. laakiin haddaad aada carartid dabku saa u sii kaco, aad sii carartid dabku waa sii kacay, aakhirkii adaa gubaansid. marka dadkana ku badbaadinayna waad gubisaa. marka saas sameeya insha allahu tacaala. haddaad adigu gubatidna dee waa taqaana saasoo kale sameey. hadduu qof kale gubtona saasoo kale ku dheh. yani waad ogtahay qofka markuu gubto miirkiisa si fiican uma shaqeynayo. hadduu cararo ka daba orod shallaafato u dhig suu dhulka ugu dhaco uu ku galgaldo, bacdina dhowdii maro saaro ku daboolo. dee xal kale male. ninka hadduu maarata gubto miirkiisa ma joogo mootay. insha allahu tacaala ilaahina ha inaga badbaadiyo waxaasoo kale inooguma keeno ilaahay subxaana watacaala.
videogan waxaan ku baranay qaabka qofkii loo tacaamulo qofka jikada hadduu gubniin ka kaco oo biyahaan ka ilaalina. hadduu qofkii meel ka gubto ahma xaaja waa in biyo soconaya 15 daqiiqo ama tuubo ha noqoto ama meel kasta ha noqoto, almuhim 15 daqiiqo waa inay meeshii biyo ku socdaaniin, biyo caadiya. kabacdi maro mucaqimaan saarina laakiin aana qutun ahayn. haddii dab qofkii ka kaco dharkiisa waxaa laasim waa inaanu ordin oo dhulka fadhiisto oo dhulka isku galgaliyo ileen uu demo. hadduu demi waayona maraal saa loo saarayo insha allah, ama busto ama wuxuunba saa u saaraysa. channelkan haddaad ku cusubteed subscribe dheh insha allah tacaala, jirka gambaleelkana ku dhufo si wax kasta cusub kuusoo gaaraan. haddaad daawan fiidiyohaadkeena hore ku noqo oo daawo, iyo fiidiyohaadka insha allah soo socdaana aad baan waxaan iga tarayaa. haddaad istifsaar leedihiin iyo wax leedihiin commentiga hoos ku qoro insha allah, jawaabta waad heli doontaan. aad baan umahadsantihiin dhegeystayaal. wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.